والله جلاد إيه ما شاء الله جلاد وحس وهري صونا لصوق لي أصحابك صونا إمادي صون كان إمادي إلهي غير كيس حنا وافجيو يا محمد جلاد عنوي أصحابته مسيا اسمها جلاد والله جلاد إيه ما شاء الله جلاد وحس وهري صونا لصوق لي أصحابك صونا إمادي صون كان إمادي إلهي غير كيس حنا وافجيو كوي نبتكو قارنا الله نقديقو أصحابته لمانتو دنعيدين waxaa taagan vlogan duubona waxa waaye JK Maxamed Taanik injineerka hal kala kama kana Amino waana duubooya asxaabta marka waxaan ii sheegayaa food cad injineerka waxaan dhoo iswaabeen ya injineer asxaabta waxaan ii sheegaa waxaan rabaa JK soonka inaan qabto rabadaanka barnaamij oo dhahayo afur walaalka sax oo soonka hore adi aawadi jirtay haddana kule sheekay waa ka wadaa umaleena waa ka wadaa adigana waa kula wadaa nimceeba barnaamijka saarnaa anaga waa gaarsiinayna waxaan sameynaynaa qof walba dadka say u kala wax yar yihiin u kala tabar yar yihiin sida masaakiinta dibadda joogto kaleeto oo tuugsanayso kale oo aan haysan afur dadkaasoo kale intaan gaarsiinaynaa afurka fadhigooda ku gaarsiinaynaa marka maadaama fadhigooda aan ku gaarsiinayno asxaabta waxaan leenahay cid alle cidii sadaqa la baxayso ama rabto in ay afuriso walaalkood oo aan haysan afurka waxaan leenahay ha soo dhawaadaan welcome anaga xoogiyaan leenahay iyo wixii kale oo awoodnana waa waxay filaayeen ما شاء الله أفوري والالكاغا وبرنامج أد وناكسن وودنا برنامج كاس إن شاء الله هذه مركز بشكل كودو يعني برنامج كأنه حارب جاك إلا كل قاضي ضد مساكين تمارك أو فلسطين مخفيش مول يا أو وحده يصير قبل بوي ونقص برسمة وشادي بدك كاس على وجهنا أوكي وهي أنا سيد عقانته وكله dadka aan hooy haysanin oo kaleete sadaqada meesha ay ku haboontahay aan gaarsiinayna marka waxaan u kacnay bulshadeena muslimiinta ah ee aan haysan waxay ku afuraan asxaabta Soomaali Maxamed iyo dhammaan ummadda islaamka iyagana waxaan ka codsanaynaa meel walba ay joogaan barnaamijkaas inay nagala qayb qaataan ما شاء الله waa bisha kaliya markaad sadaqa dhiibato lagu laba jibaarayo waxaan ka codsanaynaa markaas Soomaaliyiin in ay barnaamijkaas nagala qayb qaataan mar walbana waxaan jecelnahay qofka wuxuu soo dhiibto in aan tusino halka uu ku baxay waxaan ma santiin insha Allah taala waa ka saa barnaamijkaas sheekayarna uu ka socon doonaa nimcay badan ka socon badan oo nagu gubaabinaysan waa jirtay oo na dhahaysay barnaamijkan bilaaba oo nala soo hadashay hal iyo laba kulligood halkaan ka daawan doonaan macnaha inaan bilawnay idinka hormood u ahaa nagu dhaliyay barnaamijkan annagana hore u sii wada joogna intii macnaha garabkooda soo istaagtana qof walba sadaqada u baxsaday aakhiro uu ku baxsanaa qof walba waxaa wanaagsan in uu barnaamijkan ka qayb qaato hadda sida meeshaan oo kale dad baa ku nool waa kaam cidna u maqnaan ceelna u qodneen marka dan yaraa la dhahaa ما شاء الله والله بلا وحنا نقولنا ما شاء الله قفك ديبت حتى قفك نقولنا wax macnaha cayiman ma jirto qof walba intuu awoodo hadduu hal qof uu furiyo xitaa fursad waaya laga faa'iideysto siday sheegeen Nimca Axmed Eebi iyo JK bisha Ramadaan waa fursad walaalayaal waxa ay sheegeen waa sax dadan u jeednaa oo tabaalaysan oo afur awoodin oo bisha Ramadaan ay ku waajib tahay marka waxa fiican intii Ilaahay wax siiyay oo aakhiradood inuu Ilaahay u sameeyo كو يتوان بلاد وبشي فرصة هاد وهاي أنا كنا مسؤول والجالسين أجر جهلنا لكن أجر كاس أنا كشقيسنا وحهرمود نوعا إذنك أجر كاس أنا شقيسنا وحهرمود نوعا إذنك صوت دلالة بش رمضان واي أو حين الروابة لوجرا أو ربي حتى تدنا ويكفر حيان روب هذا ونودها تدنا وحيلين أيقو روب كيسكربان أو حيلين روبا إيمانونه هذه الروب ده سيلنا والولاصة مركز سيد نمع شيكتي والصح على كسوف فايدة بش رمضان
horeen u soc afuri walaalka soo dadaala halka aan haysanna la barnaamij ما شاء الله soo kan ka saan rabaa insha Allah inaan xoog saaro asxaabta marka nala socda nimcaheeda barnaamijka si kaas oo kala bixi doona shaakir laakiin soonka hore iyo soomo kala bood kala socoteen xasan waa kala socoteen laakiin hadda soonkan insha Allah ilaahay naftu gaarsiyo nimcaheeda ka bilaabi doona asxaabta barnaamijkan hadda ay idin sheegayo oo insha Allah soonkan nimcaheeda ka bixi doono barnaamijkan waxaan ugu talagalnay dada iga soo dalbadeen oo dhaheen wax ka fiican oo aad qaban leed ma jirto ana awalba qorsheygu uu ahaa laakiin si dad kale inta hadana oo aan rabin halkaan magacooda inaan ka sheego laakiin dadka asxaabta dhow barnaamijkaas wadaan oo saas darteeda marka waxaan anigana isku leeyahay bal adigana ajar shaqayso xooga kaliya ma ahana wixii awoodna anaga xitaa dadka laga sii tabar daran ya oo ku sii kaalmeynayna marka qof walbana fadhigiisa ugu geyn doonaa insha Allah qof walba oo maxaan lahaayay dadka tabaalaysan dadka say u kala dhib badan yihiin aan ugu kala qaadaynaa qof maanta waxa iska jiro gurigiisa joogo oo heli karo in uu afro ama aan heli karinba laakiin haddii afurka u gooyo casheeli karo laakiin kii aan heli karin ka waran afurka iyo cashada taasaa ugu dara soo maa dadka masaakiinta oo joogaan muqdisho mool horteeda oo kaleete oo ku tuursan والله ددا dhibaataysan والله unugo والله caloosha sii wari oo inama hooyo rabadaantina waa haysaa waxlaana waa haysaa markaa hooyo unugo والله Luis dhan waa khuluucsan muqdisho ma caloosha yuri والله بالله marka bisha kaliya waxa waaye la kala faa'iideysto way asxaabay barnaamijkaas gaarka ah idin wadnaa insha Allah habeenka Ramadaan oo bariyo kala bilaaban doonaan barnaamijka idin bilaabi doonaa masaakiinta dhan waa soo aruuriyeena lacag ma siiyeen wixii oo ii karabaana u sameeyeen waa loogu soo adeegaa qof saas wax ka fiican male qof walba oo wax soo dhiibanay qaabka u dhaho insha Allah u sameyn doonaa insha Allah lambarka anaga soo xiriiraysiin shaashada idin soo saari doonaa asxaabta maxamed hayin hal ila wallahi min horta waxa way intaqana aragtida guud horta waa Soomaaliya dilay waa wada qabnaa صح qof walba maanta wuxuu leeyahay qof wax ku aamino wax u dhiibo ma fahantahay haddii la helo aaminka haddii la helo dadkeena dad aad macnaha u qalbi jilicsan waaye weliba dadka Yurub joogo inta anagana la soo xiriirisay arkay ma fahantahay oo bilaawo kule mar haddii maanta loo baahan yahay waxaan rajaynaynaa insha Allah billahi karim barnaamijka inuu miro dhalo oo idinkana macnaha aakhiradiina iyo adduunkiina uga faa'iideysataan haddii Ilaahay idmo insha Allah billahi karim waxaad soo dhigtaan sideeda loo gaarsiin doonaa haddii Ilaahay dadkana loo deeqsiin doonaa insha Allah ما هن كريه حتى دبت كريه كم ترى والله محمدو والله dalka xataa dada jiro la baxayaan afur walaalkaaga barnaamij Allah la baxayaan jirto marka dalka xataa cidi doonaysa in barnaamijkaas naga qayb qaadato waxaan leenahay welcome soo dhawaada waxaan leenahay afur walaalkaaga كود رمضان بلابنا إلا صدق كذا لا هدي اللي عيد سيانا كوا سيف عن هدي أتسيع عيد سيانا كوا في عن الله بدنا وحاجة تمانت يرجع بدنا أودين هنا $7 إني نقول نسيل ميرو متقنا لبس كيسة على $2 حقنا قوس فهمت وحواي وكاب كافيه ويا حقنا مثل لا فيديو يا dadka dibadda jooga kaliya maana dadka dalka jooga xataa cidi la baxaysa sadaqo waxaan leenahay afuri walaalkaaga baahan barnaamijkaas nala socda insha Allah si wada jiro waxaad ku soo daadiin doona barnaamijkaas aniga iyo Maxamed Titaali iyo JK oo xilligu fursad helana isagana naga qayb qaadan doono marka waa kaas asxaabta nala socda ilaahay wuxuu leeyahay isku naxariista idin naxariista marka bisha qeyrkeeda nin walba ka faa'iideysto annagana Allah naga dhigo kuwii ka faa'iideysto ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu nagu gaarsiiyo basbash iyo barwaaqo Maxamed Ali waxay noo xigi doonaa barnaamij ciidan noo xigi doonaa ilaahay ودادينينا مid xaraay maahan kan nimco hadii oo ay noqoto mataqaana jaarity hadii noqoto wuxuu fiican tahay mar hadii aad bilowdo maartay hadhow barnaamijkan inuu sii socdo oo mar walba mataqaana hadii aad marta shaqada maartay waxa uu noqon kartaa hormuud oo noqon kartaa wallahi waa fikir aad fiican way waxa shan doona ilaa intuu gaaro maartay waxa jiro hooyin badan oo dhibaataysan jira ana wakiil uga noqo Ramadan waa 3 casho way 3 casho
qof walba wixii uu khayr geysto ayuu micnaha abaalkeeda heli doonaa إن شاء الله especially waxaan aad ugu adkaynaynaa weli dadka ehelka noo ah iyo dadka asxaabta noo annaga ما dadka ayaga barabaan inay sadaqada la baxan koodhe laakiin anaga waan bilawnay waana bilaabeynaa xoogeeni iyo wixii aan awoodna waa sadaqaysanayna idinkana garab idinkaga baahanahay waayo nin walba oo rabo in uu sadaqaysto wax oo walaalkiis afriyo waxa leenahay welcome soo dhawow nala soo xiriir lambarka shaashada lagu soo qoraa إن شاء الله ها lambarkayga shaashada lagu qori doonaa rabadaanta kaliya la dikagama baahnaa macala iida xijinaysaan xaqalciidina waa ku xijinaysaan saas waay ilmahaasaa ku farxaan fursadaas ha laga faa'iidaysto qof walba oo danaynaya walaalkaadii wax sii annagana insha allah sida aad micnaha noo soo wakiilateen insha allah waajibaadkeena waa u gudan doonnaa waxaan idin leeyahay marka waa fursad muhiim ah oo furaheeda haddii aad gacanta ku dhigto insha allah bismillaahi kariim noloshaada wax weyn ka bedeli doonta nimco maxaa kala ku daraysaa maya intaan dhihi lahaa bacdaa sheegay marka asxaabta waxaan leenahay nala socdaa إن شاء الله haddii ilaahay uuna gaarsiiyo soonka insha allah soonka habeenka koo uu yahay noo balan